duqa magaalada Berbera weheliyo xogayaha dawladda hoose magaalada Berbera iyo xubno ka tirsan madaxda waxyaha dawladda hoose magaalada Berbera ayaa kulan la yeeshay maanta dadka ku dhaqan xaafadda Burcasheekh ee magaalada Berbera taasi oo ujeedaduna ay ahayd sidii dadka xaafadaasi ku dhaqan iyo maamulka dawladda hoose Berbera ay isu leeyahay lahaayeen in adeegii bulshada loo baahnaa xaafadaasi wada gaadhay waxyaabaha ka dhiman carqaladaha jira iyo guud ahaanba sida looga bixi karo duqa ayaa hadal uu ka jeediyay waxa uu ka warramay dawladda hoose iyo qorsheeda ku talagalka iyo sida ay diyaarka ugu tahay in dadka gaadhiso adeegii loo baahnaa biyaha waxaan u kala qaadinaa laba qaybood wixii imika dadka lagu sii afqaban karo ee lagu soo afjari karo waqtigee lagu soo socday loo lahaa xagaaga inaanay burcashada saraana biyo beenin anagaa ka howlgelana degdeg baan uga howlgelana insha allah laakiin idinka waxaan ka rabaa waa tambareyn waxaa loo qabanayaa wixii permanentka ahaa ee joogtada biyaha u heli lahayd in idinka ladinka helo xaafadiinu marka sarfey laga saaro adeegii iyo noloshii asaasiga heed oo dhan baad helaysaa waddadu waa dariiqa kuu soo marayaan gaadhigu kuu soo maraya biyuhu kuu soo maraya leerku kuu soo maraya nabadgelyadu kuu soo marayso markaa taas idinka idinka allah idinka ladinka sugayaa iyo qorshaha 2016 inaydaan ka hadhin maaliyadda dawladda hoose ee xaafadda Burcasheekh xaqay leedahay inaanay ku waayin iyadu inay tashakar weydo haddii tashakar weydana waan u taneena qodobka labaad ee uu ka hadlayna ka dhalinyarada ahi wuxuu yidhi xaafadda waxay u baahan tahay garoon boqol iyo boqola oo goglan oo facilitigiisii oo dhammaystiran ayaa miisaaniyadda 2015 Burcasheekh ugu jiray meel alaaleey meelaan ka dhisna ma hayno xitaa meelaan iibinaan weyne sidoo kalena xogayaha dawladda hoose magaalada Berbera iyo madaxa waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose magaalada Berbera ayaa iyaguna sheegay inay mar walba diyaar u yihiin dadka inay gaarsiiyaan adeega loo baahan yahay dadka ayaa iyana waxay dad weydiinayeen su'aalo ku saabsan tabaashadooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka ku dhaqan xaafadaasi marka mas'uuliyiintu idin timaado idina alla xisaabtantaan baahidana la isu sheego la istoosiyo la isu dulqaato ayuu isbedelku ka bilaabmaa isbedelku iyo horumarku dhinac walba ha ahaado mid nadaafadeed ha ahaado mid soo celin bilic ha ahaado mid nolosha dadweynaha kor loo qaado ha ahaado mid xuquuqdii qofku lahaayo helo ha ahaado waxay ka bilaabantaa ama yani ay ka unkantaa kulankeena oo kale ka unkantaa aad iyo aad baan runtii idinku mahad celinayaa waxaanan jeclahay inaad sidaa u fahantaan طالكين أنا اللي نجيب ينوك يفسنيبا وحلا يهاي لا أفضل أنك ديار دينا مرولبا بلا شوار ذكرنا إيه بدو كويا لتكواين إيه جنوب فايدة سنة وحوية أنا بقول قاضينا إيه لكن أدوغو قاشن كروب بالإقسام وده حكينا له تبدأ أوصل صارين كرتون أما جوان كوري أو كحل amurtan ayaa ahayd mid soo daba socotay oo maamulka dowladda magaalada Berbera gaar ahaan duqa magaalada Berbera ama Cabdishakuur Ciidin Abujaal uu la kulmaayay dadka ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera si loo ogaado dareenka dadka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga wada tashado Cabdi Salaan Xariish Cusmaan TV-ga qaranka Somaliland Berbera.